aadan mataan oo ah wiil dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana degan dalkan Ingiriiska ayaa bilad sharaf caalami ah lagu guddoonsiiyay aqalka boqortooyada dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. bilad sharaftan ayaa ah mid ay sanad walba bixiso boqortooyada dalkan Ingiriiska taasoo ay guddoonsiyaan shakhsiyaadka waxtarka u leh bulshada ku dhaqan dalkan Ingiriiska. aadan mataan ayaa sanadkan ka mid noqday dadkii loo soo xushay isla markaana ku mutaystay inuu wax badan ku soo kordhiyay bulshada. bilad sharaftan ayaa waxaa lagu guddoonsiiyay aqalka ay magaalada London ka degan yihiin boqortooyada waxaana gacantiisa ku guddoonsiiyay Prince William oo ah dhaxal sugaha boqortooyada dalkan. aadan mataan oo intaasi kadib telefishinka qaranka uga warbixiyay sababta uu isaga uga mid noqday dadkii biladahaasi la guddoonsiinayay ayaa inoo sheegay sidan. Mr. Adam Matan for services to the Somali community in the United Kingdom and to British-Somali relations. Yusuf aad iyo aad baad u mahadsantahay marka koowaad walaal. Marka labaad shahaadadani waxa weeye shahaado ay bixiyaan boqortooyada wadankan sanadkiiba hal mar oo ay siiyaan dadka ay marka u maleynayaan ama markii la eegay ay la arkay inay bini aadanka kale noloshooda wax ka bedeleen taasoo inay si wanaagsan ay wax uga bedeleen iyo inay wax wanaaga oo horumar ah ku soo kordhiyeen wadankan Ingiriiska. marka runtii shahaadada saasa loo bixiyaa boqortooyada wadankan aad bixisa sanadkii waxa la siiyaa dhowr boqol oo qof oo runtii ay u arkaan inay wanaag badan u soo hooyeen qarankan iyo dadka degan. marka aniga waxa la siiyay in aan wax ka bedelay mujtamaca guud ee Soomaaliyeed ee wadanka degan Ingiriiska oo aan uga bedelay si wanaagsan oo ah iswanaagaas oo ah isdhexgalka horumarka dhalinyarada shaqo u raadinta u dagaalanka xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ee wadankan. ugu dambeyntii aadan oo aan wax ka weydiiyay su'aalihii iyo jawaabihii dhexmaray isaga iyo dhaxal sugaha boqortooyada dalkan Prince William ayaa ii sheegay sida tan. Yusufow waanba aad baan anigu runtii ugu bogay aqoonta iyo intuu ka garanayay wiil kamid ah wiilasha ay iyadoo tahay boqorada wadankan oo iyadoo hadda daa oo intuu ka garanayay geyga Soomaaliyeed. markii aanu isu tagnay laba su'aalood bi weydiiyay su'aasha koowaad waxay tahay maryahan macnahood oo dhaqanka Soomaaliyeed waan arkaa inay yihiin laba go oo cadcad iyo shaal iyo bakoorad inay yihiin waan arkaa hangool inay yihiin waan arkaa laakiin maxay tahay macnaheedu marka mid kasta inuu macnaheisa la qeexo ma han wala yara hangoolka oo oodna lagu soo jiito xerada laguna dhiso laguna kala furfuro macnaheedu inaan u sharaxno labada go inay yihiin ummadda Soomaaliyeed nadiifnimadeeda siday uga turjumayso iyo waxay cadaanku manca ugu fadhiyo inaan u sheego. iyo su'aasha labaad weydiinay waxay ahayd ka waran xaaladda xamar maanta ama Muqdisho xaaladeedii ka waran. annagu waxaanu ka maqalnaa xamar runtii ma habboona ama waxaanu ka warayno waxa weeye waxaanu newska caalamiga ka aragno ay soo daayaan warbaahinta waaweyn adduunka ee ka waran xamar maanta. isagoo xamar muusan dhinin Muqdisho dhaay xamar ma garanay ma malaynaya laakiin Muqdisho ka waran buu dhaay. Muqdisho runtii waxaan ku dhahay 10kii sano ee la soo dhaafay waxaanu gaadhnay meel aan la gaari karin oo aysan London gaarin oo caasimadii dibudhis qeyr caadi ah ku socda oo dhinac kasta oo ha noqoto dhaqaalihii ha noqoto nabadgelyadii ha noqoto bulshadii iyo fakarkii guud ee bulshada isbedelaya laakiinse meeshii aanu hamiga iyagu gaarsiisnaa Soomaali ahaan iyo hamiga adduunka wali ma aanu gaarin. marka taasna waxaan jeclaan lahayd inuu adiga iyo dawladda guud inaad policy xiriidid waliba ra'iisul wasaaraha wadankan markaad waqtigiisa haddaad waqtigiisa soo heshaan inaad tirahdid Soomaaliya xaaladeeda ha laga warhaayo indha dheerina ha lagu eego. marka intaas aanu isnay runtii kadibna waxaanu kala tagnay. Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.